ورحمة الله وبركاته وحيلتها هذا المهر سنة هذا الكي مهمة ديسي ولا يري حكتي رسمي جاهد وحبحية أجاسمها هوسبيتالك دكتور عسكر أرنتن جورنال كقري كنتي وارن تعايدة وانسل يراتون الهين بيان وان عمبارين يا جورنال كاس يعدي كدم بيسي مقال كابا عدي دونتبهات ومقال ويك كلبا إنه هو يهي مصير لقى مصير سيهي adeegyada caafimaad ee aadka u koraya ee cusbitaalka ka socda waxaan ka shakisanahay ama aan isleeyahay waxa lagu kula private clinics oo halkii ay runtii ku farxi lahaayeen aad moodo in ay warkaan cusbitaalkii threat businesskoodii threat ku yelkadeed أنا قلت المايو لكن عد كستو كذا بيسوون عمباريننا جورنال كانوا سدا أجاسمه الشيء محكمة بنلتقينا ونا عضينا يا وحنا الشيء عسبتالكو خرمر آدية أدون أكسن ورنتي الله تابن كرو لوجي هاي مجتمع أوجي هاي أيو كتل أبصر أديجي بدن أو عفمات أو أن هوري لو دبول تشرين أيو دبول كود بدها لو أدي تشريب وهالكن مكا ضدك أوجو قبتها دخاتير أقون ولا وحي قبنيان باتشوغا داوود تيلا بالكينا وعسبيتال غرن ماها عسبيتال هرقيسة ما وعسبيتال والناشنال هوسبيتال واي وحا اللوغي مادا لما مدلك يدلك دبدي سوا مركا والريفيرال هوسبيتال وين ريجنال هوسبيتال ماها ووح لغو فاني كرو وحا يمكا عسبتال كسعودا ووحان هورو جيري جيرين ماشي ومانتا مرايو وليد عسبتال ودن ku yaallay ma gaarin sida agaasimaha guud sheegay modelka cusbitaalkan imika ku socdo waa model aan doonayno inaan u dhaadhicino regional hospitalka waa cusbitaal isku filaaday dadkiina ku filaaday waad arkaysaan tirada dadka iyagoo soconaya inta yimaadaan maalintii la daweynayo agaasimuhu inoo sheegay inta jiifta ee loo adeegayo inta la qalo 1900 qof baa sanadkii hore la qalay saddex qof baa dhintay waa dareemi kartaa 1900 qof oo la qalay oo saddex dhimatay 1800 bay hadda maraysaa soo far saddex qof baa dhintay marka waa dacaayad propaganda oo indhala waxa foora qoray mujtamacana waxaan uga digayaa waxyaalaha la qoro ee joornaaladu qoraan in ay iska hubsadaan joornaaladana waxaan ka codsanayaa inay ilaaliyaan ethicska journalismka saxaafadda inay ilaaliyaan inay iska daayaan beenta iyo majarahabowga ay ku ridayaan mujtamaca lama baahna waa inay noqdaan constructive oo ay dadka hagaan dadka ku hagaajiyaan meesha wanaagsan dadka ku baraarujiyaan waxa wanaagsan waa dalkaagi iyo dadkaagi inaad wax u dhinto looma baahna inaad wax tirto mooyaane mujtamacana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad buu sheegayaa in ay ka faa'iideystaan arrintani waa been cusbitaalka inaad ka faa'iideysataan indhaha macallina dadku way ogyihiin cusbitaalka wuxuu qabto 24 saacadood wuu furan yahay 24 hours wuu furan yahay dhakhaatiir baa isbedelaysa xirfadlayaal caafimaad oo kala gedisan isbedelaya maamulka isbedela 24 saacadood muddo adeega marka hadalka ku dheeraan maayo waxaan kaloo halkan ka codsanayaa private clinics ka anagu diyaar baan u nahay inaan la shaqeyno oo aan wada shaqeyno oo aan dadku wada adeegno oo dadka adeegyada caafimaadka wada gaarsiino waxaan jecelahay in waa cusbitaalkii qaranka cusbitaalkan referralka aad sameeynaysan u soo gudbinaysaan inuu noqdo mid ku jira stage-kii wax laga qaban karayay ee aanu cusbitaalku idiin noqon dumping ground ad ku soo turtaan qofka aad u taag weydaan waxa dhacday inta badan inta xitaa dhimatay sida maamulka cusbitaalku ii sheegay waa dad in badan lagu hayay private clinic oo lacagtii laga dhamaystay
waxba laga qaban kari waayey xabaasha qarkeedii maraya yaa cusbitaalkii loo keenaya muxuu private business ku u soo tuuraya qofka two reasons mid waxa weeye waxba kama qaban karo waxa arkayna waxba laga qaban karin midna waxa weeye in clinicskiisa dhimashada uu ka yareeyo oo lagu dhiman waxaan codsanayaa idinkoo dadka u danaynaya inagoo dhan inoo danaynaya qofka aad soo gudbinaysaan ama aad u soo diraysaan cusbitaalka ama aad leedihiin dibadaha loo qaadaba inuu yahay qof ku jira stage weli rajale marka rajale aan dhacdo ku hay meeshaada cidna ha gudbinin eed ogaato in waxba laga qaban karo intaasna waxaan u sheegayaa private business clinicska waxaanu u sheegaynaa in aanu aad iyo aad u soo dhaweynayno wada shaqayntooda inaanu aad iyo aad u jecelahay inaanu si isku mida hadaf isku mida iyo gool isku mida wada yeelano aad baad u mahadsantihiin sidaagaas inuu sheegay qorshayaal badan baan usoo wadnaa cusbitaalka meel wacan buu marayaa laakiin wax badan baa dhiman ilahay idinkiina waxaan rajeynayaa waxa dhiman inay inoo hagaagaan dhismahu waa number 1 oo cusbitaalka 1953 baa la dhisay 1953 hargeysa 100,000 ka yar baa ku noolay iminkana milyan baa degan 30,000 waa ku noolaa iminkana milyan bay ku dhow yihiin haddaanay ka badnayn cusbitaalka waxa weeye capacity-gii loogu talagalay oo ahaa around 60,000 less than 100,000 wuxuu doonaba noqo ayaa waxaa isticmaalaya 4 million oo hargeyso keliya maaha 6 gobolba way isticmaalayaan oo dadku ka imanayaan marka tan ugu daran iminka waxa weeye infrastructure-ka in aanu helo dhismo international standard ah capacity-ga dhowrka milyanna leh insha Allah sida uu sheegay master plan-kii waan sameynay fundskii un baa iminka issue ah yana ilaahay uu noo fududeyn doonaa aad iyo aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi